ninkani wuxuu sawiray weji u eg midka ku daabacan lacagta doolarka Maraykanka kadibna wuxuu si lamid ah u sawiray nashqadihii iyo qoraaladii lacagta isagoo fiiro gaar ah u leh faahfaahinta ugu yar wuxuuna isku geeyey qaybihiisii uu sameeyo shax been abuur ah oo $100 ah taasi waxay ahayd qaybta ugu fudud caqabada dhabta ah waxay ahayd koobiyeynta calaamadda biyoodka sababtoo ah calaamadan gaarka ah waxaa lagu daraa inta lagu jiro soo saarista warqadda lacagta aad ayayna u adag tahay in la soo saaro Mark oo ah khabiir ku takhasusay been abuurka wuu awoodi waayey inuu sameeyo sidaa darteed hogaamiyaha kooxda Henry ayaa la yimid fikir haddii ay marka hore sameeyaan calaamadda biyoodka kadibna ay ku dhex dejiyaan laba lakab oo dhuuban oo warqad ah oo ay isku cadaadiyaan saddexda warqadood si ay u noqdaan mid keliya waxay abuuri karaan calaamad biyood aad ugu dhow mida dhabta ah waxayna la mid noqonaysaa dhumucda lacagta saxda ah sanado badan oo cilmi baaris ah oo uu sameeyey Henry ayaa muujisay in buugaagta telefoonka laga sameeyey warqado ka soo haray soo saarista lacagta dhabta ah dhumucdooduna ay ahayd 3 meelood meel dhumucda lacagta taas oo ku habboonayd qorshahooda Henry iyo Mark waxay si qarsoodi ah ula xiriireen agaasimaha guud ee shirkad isgaarsiineed iyagoo iska dhigaya inay yihiin hay'ad samafal waxayna ka iibsadeen 100 tan oo warqad ah iyagoo isticmaalaya shaxdii ay diyaariyeen waxay markii ugu horeysay daabaceen lacag been abuur ah markii ay khubaradoodu eegeen natiijada waxay ogaadeen in lacagta beenta ah aan laga sooci karin tan dhabta ah idina ma shakin lahayn inay been abuur tahay hal dhibaato ayaa hadsanayd khadkii midabka iska bedelayay ee lagu isticmaalay lacagta dhabta ah waxaa heli karay oo keliya bangiyada dadweynuhuna ma heli karin Henry wuxuu dejiyey qorshe khatar ah si uu u helo wuxuu amray in cagaf la dhigo wadada si loo xiro waxaana la weeraray kolonyadii siday khadka waxay sameeyeen weerar dhalanteed ah dab ayayna ku fureen ilaaladii waxayna direen rag toogasho ah si ay u dilaan inta hartay kooxdii waxay qabsatay khadkii waxayna bam ku xireen gaarigii kolonyada si ay u baabiyaan dhammaan cadeymaha qaraxuna wuxuu kolonyadii ka dhigay dambas intaa kadib makiinadahooda daabacaadu waxay shaqaynayeen habeen iyo maalin waxayna bilaabeen inay soo saaraan lacag aad u badan oo been abuur ah lacagtii beenta ahayd waxay u ekayd mid dhab ah ilaa heer lacagtii dhabta ahayd ay u muuqatay mid duug ah marka la barbar dhigo laakiin Mark wuxuu ka walwalsanaa in khadka gaarka ah uu ka dhammaan doono